ku dhaqaana wadanka Saudi Arabia ayaa iska aruuriyay deeq ay ugu tala galeen in ay gacan ku siiyaan ardayda wax ka barata iskuulla ku yaala gobolka Awdal. Warbixin arintaasi ku saabsan waa kan wariyahayaga Sakariya Cabdi oo warkaasi nooga soo diray Saudi Arabia. qalabkan oo la filayo in maalin dhow la gaarsiin doono dugsiga Geb ayaa isugu jira kuraas, miisas, sariiro, furshaan, go'yaal iyo qalabka karinta cunnada. waxaana deeqdan iskuulkaasi cusub ugu deeqay xubno ka mid ah qurba joogta reer Awdal ee degan magaalooyinka Riyadh iyo Jidda ee dalkan Sacuudiga. telefishinkan Universal ayaa waxa uu suurto gashay inuu booqdo goobta laga rarayay qalabkan oo u dhow dekedda magaalada Jidda, iyadoo xilligaasi la rarayay qalabka laguna gurayay kontineerada qaadi doona. Cumar Xaaji Faarax oo ka tirsan guddiga fulinta ee mashruuca dhismaha iyo taabagelinta dugsiga sare ee Geb oo degan magaalada Jidda ayaa ugu horreyn sheegay in uu dugsigan yahay mid taariikhi ah aadna loogu baahnaa. waxa kale oo uu cadeeyay in dugsigani laga furay deegaano miyi ah oo magaalooyinka ka fog oo aan hore nasiib ugu yeelan adeegyo waxbarasho oo noocan oo kale ah. caruur fara badan oo markii hore aan jaaniska haysan jirin ayaa heli doonta. waalid fara badan oo markii hore xataa aan ku fikiri jirin ilmahooda inay dugsi sare geeyaan ayaa maanta jaanis u heli doona inay dugsigaas ka faa'iideystaan. waana mustaqbal runtii aan aaminsanahay in caruur aad u fara badan ay ka soo bixi doonto. sida Cumar sheegay, qalabkan waxa ku baxday lacag ka badan $20,000 wuxuuna ka kooban yahay buu yidhi qalabkii ardayda ay ku seexanaysay oo isugu jira 200 oo sariirood iyo 200 furaash iyo gogoshii oo goyaashii iyo bustayaashii la socdaan. waxa kale oo ka kooban tahay 200 oo kursi iyo 200 oo miis iyo alaabtii wax lagu karinayay ee madbaxa lagu isticmaali doona hadii la yiraahdo. ugu dambeynna waxa uu ugu baaqay cid kasta oo danaysa horumarka iyo waxbarashada inay ka qayb qaadato taabagelinta mashruucan. dugsigan Geb waxa la furay 8 bishii 8aad ee ina dhaaftay. asaaskiisa iyo hirgelintiisana waxa iska kaashaday dadweynaha ku nool deegaanada ku xeeran Geb iyo qurba joogta ka soo jeeda deegaanadaasi. waxaana la filayaa inay wax ka baran doonaan dugsigaasi in ka badan 400 oo arday. isku soo wada duubo qalabkan waxa loo wadaa dugsiga sare ee hoyga iyo cunnada leh ee magaciisa la yiraahdo Geb oo lagu tilmaamay midkii ugu horreeyay ee noociisa kala ah dulahaanba deegaanada Soomaaliyeed ee laga taago meel bannaan oo aad uga fog magaalooyinka isla markaana lagu hirgeliyay dadaal iska wuxuu qabsaa Zakariya Xasan Qulle. xulka qaranka